Madawena Kujo Duo Minneapolis. madaxweynaheena madaxweynaha Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aniga iyo madaxweynaha special relationship aan qabnaa aniga adeera asigana gabadheeda madaxweyne sidii qof kasta uu ku yiri midkaan waaye isoo dhawow Minneapolis marka farxad weyn ay ii tahay in madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud aan soo dhaweeyo kooda istaaga mini بدني أبوه ديو براني نبض بشد واسي برمادي حسش بطور براني وسي بوادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كقدال عوضا فرحت آد وين أي إيتاي inaan soo istaago stagekan hortiina ah aniga oo og inay saacaduna saacad damba tahay dabeecada iyo hawaduna ay aad iyo aad aanay u qurux badnayn oo roobab baraf u da'ayo barrina maalin shaqo ay tahay oo haddana shaqo la aadayo inaad saacaddan intaan joogtaan waa aad iyo aad aan idinkaga mahad celinaa waxaanan u arkaa soo dhowayn tii ugu weyneed oo ugu macno badnayd inay tahay reer Minnesota waa ku mahadsantihiin Soomaaliya waxay soo martay waddo dheer waddadaas dheer waa laga yaabaa ummadaha taariikhdooda muga dib loo eego waddo in la soo maro ay fiicneed inay tahay dadka qaarkiis waa u mareen waddo xanuun badan oo dhib badan oo ummadda tiihay gashay la yidhaa laakiin nolosha wax kasta oo ku soo qaabilaba cashar laga barta ayay leeyihiin casharro badanaan ka barannay dawladnimadeennii iyo taariikhdeedii hore ayaan dib ugu noqonnay oo aan dib u eegnay xaggee waddadu ka soo qalloocatay ayaan inaan dib uga fikirno dib u eegno ayayna waayuhuna bareen waxaan rabaa walaalayaal Soomaaliya dadka Soomaaliyeed wax kasta oo ummadi ay leedahay adduunyada waxaa la yiraahdaa dawlad laba si ah loo dhistaa dad dawlad waxay u dhistaan wax ay leeyihiin oo ka dhaxeeyo oo ay wada leeyihiin jiro waxaas inay u ilaaliso dawladdu dadna wax ka dhaxeeya ma qabaan waxay dawladdu dhistaan wax ka dhaxeeya inay u samayso United States of America ka mid ah dad caalamkoo dhan ka yimiday duruufo sida annaga asbaabta adinkaad inta u timaadeen oo kale u yimiday laga yaabo qarniyaal ka hor ayay ahayd kala duwan kala luqad kala dhaqan kala muuqaal dhinac walba annaga Soomaali haddaan waa ka duwanaa intaas waxaan ahayn dad isleh midaysan luqad mida leh diin mida leh dhaqan mida leh oo ujeeddada aan dawlad inaan u samaysana ay ahayd waxaas inay noo ilaaliso diinta inay noo ilaaliso dhaqanka iyo luqadda inay noo ilaaliso si ay jiritaankeenna uu aasaas u ahaado dalalka noocaas adduunyada kuma badna annaga nasiib darro waagii aan dawlad noqonnay sababtu si kastaba ha ahaatee dawladdeenu kuma guulaysan inay noo ilaaliso waxaa ma raba wax badan inaan ku noqdo haddaan ka soo qaado halka
faktor ama cunsur ee maanta jira ee ah shabaab. shabaab waa organization isku tilmaama inay ku salaysan yihiin caqiido faith based inay yihiin. faithkuna waa maxay? waa islam. annaga dhammaanteen muslimiinaan nahay. kun sano ka hor ayaan muslimiin ahayn oo noqonnay. sunniyiinaan nahay, shiica ma qabno. xataa shaaficiyiinaan nahay, afarta madhabood hal midaan ku midaysannahayo waayahan dambe in kasta oo dawladdu marka waxay ahayday waajibkeedii ugu horreeyey inay ilaaliso diinta, inay ilaaliso. maxaa dhacda marka diintii meel daleelahoo bannaan oo qof walba meel ka soo galo, koox walbo ajenda yar wada tahay ay magaca diin. waa dadka Soomaaliyeed, waa hal ethnic group waaye. halka batan ee haddii nalaga riixo aan wada kaceenno ama wada fariisanayno waa diinta islaamka oo aan wada leenahay, wada aaminsannahay, ku dhalanno, ku dhaqanno, oo yacni jirkeenna iyo curuqdeenna ka mid ah. nimankan niman dhib badan waa meeshaasay naga soo galeen. marka hadda maanta waa la fahmay, waa lala caatifooday. diinay wadaan, shareecaday dhaqan gelinayaan, maxaanku idhahdaa xuduudday oogayaan, ee maxaanku idhahdaa intay ka dhacayaan. burcad hadday jirto inay burcad yihiin aan laisla ogaaday. wax kasta oo diinta ay xaaraantinimaysay, oo diintu ay ilaalisay, oo maqaasidu shareeca dhexdeeda ku xoog badan, oo aayaad min dikri illaahi alxakiim ilaahay uu ka soo dejiyey ayay dardareen oo ay jijibiyeen oo ay ka tallaabsadeen. nolosha bini aadamka, walaqad karramnaa banii aadama, ilaahay yacni muslimiinta xataa ma dhihin, bini aadamkaoo dhan ayaa ilaahay karaameeyey. taas marka qofkii ku tuntay oo jijibiyey oo waxeey waa sidaas. maanta ilaahay mahaddi Soomaaliya, dadka Soomaaliyeedoo ku noolaa way kaceen. shabaab inay iska dul qaadaan yay go'aansadeen. sidaas daraaddeed baryahan aniga mugaan sifaynaayo waxaan ku sifeeyaa xaaladda shabaab ay ku sugan yihiin inay yihiin malaay ama kalluun biyihii ka gureen. ma sii noolaan karaa? malaay ama kalluun biyihii ka gureen ma sii noolaan karaa? shabaab marka waa history, waa dhammaadeen, waa dhammaatay sheekadooda. ma haddaas iyo muxuu awooddaas iyo powerkaasna yaa iska leh? dadka Soomaaliyeed, dadka ilaahayaa iska leh awoodoo dhan. laakiin ficilkan saas duruuftaas shabaab waxaa ku keeno ilaahayna sabab uga dhigay dulmiga ay sameeyeen awgeed waa dadka Soomaaliyeed. biyaha ka guray kalluunka waa dadka Soomaaliyeed. ayagaa dhahay enough is enough. maanta marka meeshaasuu taagan yahay, kala carar, gabasho, dhulka meeshii howda isku ilaali, meeshii maxaanku idhahdaaye miro la cunala iyo isku ilaali, inayna isu soco karin. maanta xaaladdooda meeshay ku sugan tahay. ilaahay idankiis intaan isugu imaan doonnaa maraan dheerayn Soomaaliya oo ka madax bannaan al-shabaab haddii la yidhaah. soomaaliyadaas waaye. markaasaan u soo jeesanaynaa wixii kaloo adduunye oo 30 sano naga maqnaay ama dadkii 30 sano naga tegey inaan ka daba cararno oon soo gaarno. waana soo gaari karraa. marka xaaladda Soomaaliya haddaan si kooban idinku sheego waa intaas. maxaa marka dawladda iyo dadka isu keeno u sahla intaas? Soomaaliya siyaasad dawladda Soomaaliyeed ay leedahay oo shaamil oo kaamil oo dhammaystiran oo shabaab dalka in looga bixiyo loo habeeyey ma jiri jirin. sidaas daraaddeed
mashruuca la dagaalanka al-shabaab ee 15 sano la soo dhaafay badanaa dadka saaxiibada ah oo dibadda nooga yimid oo na kaalmeeyo ayaa daraif gareynaya oo waday ayaguna mushkiladda angalkooday ka arkaaneen sidii ay ayagu markaa u arkayeen ayay waxeen annaga markaa waa fikirnay dooda dhaadheer discussions badan Soomaaliya gudaheeda dibaddeeda dadka gudaha jooga dadka dibadda jooga waa la iswarsaday sidaan si ma ah 15 sano 16 sano ma sii joogi karo maxaan sameynaa markii dambe siyaasad cusman annaga la soo degnay bannaanka intaan joognay oo aanan imaanin yaan ka soo fikirnay annagoo package wadanaan nimid xafiiska waxa siyaasaddaasi waxay ku taagan tahay 3 tiir waa kii hore u soo jiray oo hadda aan ka sheekaynaynay oo militariga ahaa containmentiga iyo wixii ma aha laakiin waa militariga tiirkaas inuu jiro la sii xoojiyo waa qodob hal tiir waay tiirka labaad waxay ahayd nimankaan dadka maxay ku haystaan dadka waxay ku haystaan caqiidadii iyo diinta islaamka ku haystaan Soomaalidu waa dad diin jecel waa dad maxaan ku raada caqiidadooda ku dhagan ku toosan meesha naga soo galeen dagaal caqiida fikir aan la galno nimankan go'aanka labaad tiirka labaad oo dagaalka ama frontiga labaad oo dagaalka la furo waxay ahayd dagaal caqiido inaan la galno nimankan fikirka ay wataan oo irhaabiga ah oo khawaarijiga ah oo diinka bixidda ah inaan la qabsano aan mid barbar dhigno dhaana maya fikirka islaamiga ee saxda ee caqiidada ku toosan kan waaye kan ma aha nimanku waa koox maafiya ah oo dadka inay dhacdo isu soo dhistay laakiin waxay soo hugsadeen blanket ama kubeerto oo islaam ah oo caqiidadii iyo diintii xaniifka ahayd ay soo hugsadeen barnaamijka oo fikirka dagaalka fikirka caqiidada ideological war ka nimankan u talagal waxay tahay blanketkaas inaan ka qaadno si dadku ay u arkaan maafiya meel fadhida inay yihiin dadka Soomaaliyeed guud ahaan mahad ka gaarto gaar ahaan culimada Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dal iyo dibadba mahad buuxda ha ka gaarto ilaahayna ajri xasanaad ka siiyo codkaasi ayaga la soo istaagay banaanka oo yiri nimankan waxay wadaan diin ma aha la iska ilaaliyo maanta waxaan joognaa dadkii oo culimadoodii dhageystay fahmay ku qancay waxa ay nimankan wadaan inaanay diin ahayn in la iska celiyana ay bannaan tahay oo wixii diintu ayna fartay inaan u dagaalanno u dhimanno oo maalkeenna iyo cirdigeenna iyo sharafteenna ahayd inay meel ka dhac u yihiin in lala dagaalamo inay baato culimmada keentay magacaan hadda loo bixiyo khawaarij ah wuxuu ka soo baxay shir culimo oo la isugu yimid oo ka soo baxay khawaarij waa maxay khaarij can addiin yacni diinta bannaanka ka istaaga qofkaas waa ka baxay dhaqankiisuuna uga baxay iyo dabeecad afkaa ka sheega hadduu doono laakiin ficilada ayay uga baxeen nimankii marka meeshaasay maanta taagan yihiin aad iyo aad ayay culimmadeennu dadaal badan u galeen waad og tihiin nooma qarsoona culimmadeennu lafsadeeda waxyaabo badan oo lagu kala duwan yahaa jiro ma aha waxa lagu kala duwan yahay aasaasi ma aha aasaas ma aha waa afkaar waaye schools of thought yacni salafiyaan ahay ikhwaanaan ahay suufiyaan ahay maxaan ku idhahdaaye you name wada maanta waxaan haysanaa culimmadii sidaas eedoo dhammoo midaysan oo hal meel wada fadhido oo hal maxaan ku idhahdaa fatwo isla soo saarayso waa mahad ilaahay waa mahad ilaahay dalka Soomaaliya oo boqolkiiba boqol muslimiin ummaddiisu muslimiin ay tahay weligiis taariikhda intaan dawladda ahayn oo 60 iyo muxuu ahaa labada sano ah majlisul iftaa ma yeelanin muftina ma yeelanin meela dad yaro aqalliyaad oo muslimiin ay ku nool yihiin ayaa mufti leh majlisul iftaana leh ummad boqolkiiba boqol muslimiin ah oo aan lahayn
meelaha nalaga galay ka mid tahay maanta dawladdu waxay u taagan tahay institutionskaas inay dhisto si loo ilaaliyo diinta nin siyaasi oo ordaayo oo ama cod raadsanayo ama muxuu ahay inaan ku hadlayno ma rabno culimada iyo dadka diinta bartay ee yaqaano oo laakiin institutionalize garaysan my word against your word inay noqoto ma rabno meel inaan leenahay waaye warka meeshaas ka soo baxay waaye ninkii warkaas war ka duwan wadaana ummadda u qaybinaya ha la qabto meelaan dhihi karna inaan leenahay waaye maalan constitutionkeenna waxaa ku qoran dalka soomaaliya qaanuun shareecada ka hor imaanayahay kama dhaqangeli karo waa constitutional issue mas'alada maxay tahay laakiin yaa ilaalinaya yaa dhahayo qaanuunkan compatible oo shareecada leeyahay ilama aha yaa dhahayo sheekh cali sheekh jaamac sheekh cali sow oo mid walba hadduu doono meel kale uu sheeganayo maya institution dhisan culimmadu iyo dadka soomaaliyeed ay doorteen sharci leh deggan meel la yaqaano nidaam uu ku shaqeeyo iyo nidaam uu u codeeyo iyo nidaam uu fatwada u soo saaray iyo nidaam uu u waxeeyo leh oo qaanuun marka la soo daraafgareeyo loo geeyo la yidhaahdo haye qaanuunkaani muxuu ahay ma ku yahay shareecada muxuu ahay ma ku yahay compliant ma ku yahay la yidhaah haa markay soo yidhaahdaan qaanuunkaas markaas la sharciyeeyo qaanuun dalka iyo dadka lagu xukumo laga dhigo wuxuu aanay naga noqon af iyo maxaanku idhahda waa jecna marka institutionskaas sadabkiis waa socdaa dhowaan ilaahay idankiis shir aad iyo aad u ballaaran ayaa magaalada muqdisho ku qabsoomi doona oo culammada soomaaliyeed oo dhan dal iyo dibad laga wada marti qaaday isaga imaan doonaan oo ay muxuu ahay amuurahaas uga hadli doonaan iyo dhismaha institutionkaas ay uga hadli doonaan dawladdu inta meel fadhiisato institutionka waa kaasaa waa la soo go'aamiyey dawladda idin dhista la dhihi maayo kalsoonida shacabkaan rabnaa in oo muxuu ahay oo institutionka ku shaqeeyo oo wax shacabka ka yimid shacabku leeyahay ay noqdaan dawladduna ay xoojiso ay garab istaagto taas markaa intaas uga baxo qodobka saddexaad ama tiirka saddexaad oo dadaalkeen wuxuu ahay shabaab waa ogtihiin miyiga soomaaliya oo dhan inta badan marka laga reebo muxuu ahay dhulalka qaarkood ayagaa haysteen dadka soomaaliyeedna badankooda miyigay ku nool yihiin boqolkiiba 60-70 dadka soomaalida miyigay ku nool yihiin dadkaas dadkii haysta marka lacagta ay ka gura karaan mar waa zake ay yidhaahdaan mar waa tabarucaat iljihaad ay yidhaahdaan mar waa muxuu ahay canshuur iyo wax kale ay yidhaahdaan maalin walba lacag la ururinayo xoolo la ururinayo ayaa dadka miyiga lagu hayay lacagta ay heli karaan intay la eg tahay waad garanaysaa magaaladay yimaadeen meel kasta oo gacmaha lacagi ay isdhaafsanayso guriyaa la kala gatay baabuuraa la kala gatay badeecaa la kala gatay badeecaa la soo dejiyey kanaa la waxeeyey dhammaan public notarieska meelaha wax lagu kala iibsadoo dhan waa lacagay ku leeyihiin dekedda airboorka meel walbay saas u dhex galeen muddo nasiina ah oo aan dagaal lagu haayin oo ay meel walba ku dhex galaanna waa heleen ayaga oo aan ganacsiga soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed aan wax loo dhimin in aan sidaa uga soo dhex siibno ayaan ku mashquulsannahay in badan waa ka gungaarnay inta kalena waddadeedii aan ku taagannahay ayadana waa soo wada xiraynaa albaabbaha oo dhaqaalaha ka soo galo dhaqaalaha aan xiraynaa dhaqaalaha aan la dagaalsannahay oo aan xiraynaa ma aha mid ummadda soomaaliya iskool loogu dhisayey mid masaajid loogu dhisayey mid bar caafimaad loogu samaynayey mid ceel loogu qodayey ma aha miyiga ay sidaa lacagta uga gurayaan iyo xoolaha hal ceel ay u qodeen ma jiro bal iskuulkii ka xireen bartii caafimaadku waa xireen dugsi qur'aankiina waa xireen khuraafaada dadka baraysaanay dhaheen degmada aadan yabaal wixii u dambeeyey hadda la xureemo tahay 12 dugsiyaa laga xiray degmada aadan yabaal 7 sano 8 sano ka hor magaalo kasta oo aad tagtid ooba ayagu ay gacanta ku hayeen dugsi qur'aanka waa ka xireen khuraafaad iyo muxuu ahay waxaad baraysaan dadka ay yidhaahdeen lacagta marka annagu aan daba taaganahay waa lacagta qaraxa iyo materialka qaraxa laga sameeyo
iyo midka qaraxa samaynayo midka qaraxa gudbinayo lagu laaluusho midka maxaan ku yiraahdaa gaariga la qarxinayo lagu soo lacagta aan la dirsanayo waa midaas waana soo xireynaa tubooyinkaas insha Allah mardhow intaas marka waa la dagaalankii al-shabaab duruufta shabaab maanta uu ku sugayaan sidaas aan sheegnay Soomaaliya noocee aan rabnaa marka post shabaab gadaashiis Soomaaliya noocee aan rabnaa inaan aragno Soomaaliya mid ah nabad ah ayadoo dhaxdeeda heshiisay oo aan colaad qabin way kala miirantay dib isugu soo noqoto isla degta dunidana la macaamisho macaamilka ay ku macaamisho ula macaamisho midka ugu fiican Soomaalida aan rabno waa taa maanta marka waxaan leeyahay Soomaaliya cusub oo waa cusub u bariyay sida adduunyaduba ay isu soo badbadalaysay ayaan anaguna isu badbadalaynaa Soomaaliya cusub aan la imaanaynaa haddaan ka fikiraynaa Soomaalida sida ay kaanayso naqshadeedan samaynaynaa waa daba kaceena ilaa meesha u dambaysa aan jecelnahay inaan gaarna hadii alla yiraahdo marka Soomaalidaas u diyaar garooba dhalinyaro mardhow u diyaar garooba dalka inaad ku soo laabataan hadii alla yiraahdo ugu yaraan fasaxyada marka la qabo iyo winterkan oo kale marka qabowga jiro waa hooyooyinka iyo aabbayaashu inay soo laaban doonaan laakiin dhalinyaradana sidoo kale aan leenahay waxaan rabaa dadka reer Minnesota hal mid caawa inaan ugu bishaareeyo dad Soomaaliyeed oo isla jooga oo meel degan oo dana Soomaaliyeed oo dhan lahaatiin dhaqankii diintii waad ilaaliseen masaajid badanna waad dhisteen waana u istaagteen ummadaha islaamkaana waxaad u noqoteen role model lagu daysadaad u noqoteen aad iyo aad ayay runtii sharaf adduunyo iyo mid aakhiraba u tahay waxaan rabaa marka dawladda Soomaaliya waxaan rabaa reer Minnesota inaan caawa ugu bishaareeyo qunsuliyad Soomaaliyeed ayaa laga furaa Minnesota laakiin qunsuliyaddu shaqada muwaadiniinta iyo shaqada qoyska iyo shaqada muxuu ahay ay qabataa waxaan rabaa ugu muhiimsan waa laga yaabaa qaarkiin inaan markii la yiraahdo qunsuliyada la furaa baasaboorka meelaan ka cusboonaysanana weyne iyo warqadda dhalashada meel muxuu ahay laga waxyaabo nagu dheeraatay iyo muxuu ahay safaaraddeena DC degan oo labadii bilood ama saddexdii biloodba dad soo dirtay iyo qunsuliyaddan dabcan safaaradday ka tirsan tahay laakiin maxaan rabaa aniga midaan marka codsanaa dawladdiinna waa tabar darantaa waa ogtiin horta qunsuliyadda in laga shaqeeyo la dhiso dhul loo yeelo loo kireeyo laga shaqeeyo waa kow dhul yaroo laba qoloo laba wiil iyo laba gabdhood ay fadhiyaan ma aha dhul weyn oo barxad bannaana leh oo carruurta la isugu keeno maalinta sabtiga iyo axadda isugu yimaadaan xafladaha 1 Juulaay la qabo iyo meelaha la qabo dhan la isugu yimaado hadday suurtagal tahay muxuu ahay xaflado kale iyo ummadaha kale lagu marti qaadi karo oo la tusi karo calanka Soomaaliya uu ka taagan yahay inay noqotaan rabaa dawladdu ha tabar yaraato hadday doonto ee wixii karaankeeda ay la imaanay inta kalena reer Minnesota laga rabaa ma ballan qaadeen ma sha Allah idin karaamay waa maasintiin qunsuliyadda Minnesota bas maaha magaalooyin dhan ayaa oo community Soomaaliyeed oo kasto oo number fiican ma ay degan yihiin waa laga furaa Columbus ayaa laga furi doonaa laakiin hal mar ma wada furi doonaa ma wada furi karnaa waa kala hormarsiinayna laakiin markii Minnesota laga furay macnaha ma in meelaha kale la iloobay ma ayagana waa laga furi doonaa hadii la yiraahdo fariintaasna aan laga gaarsiiyo mar kale waa idin mahad celinaa aad iyo aad u mahadsantihiin Allah idin sharfo waa sharafteen ilaahay idinkiis waa guuleysanaynaa wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh